السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها صومالية ميلاد شوكتان بويد السلام يا ولا لي الدمانتين بإلهي هذه السلام يا ويتوفوا سوية الله يدين فايسية الدنيا أقرب ولا لي الدمانتين بصومالية ميلاد شوكتان وانا تشعل هاي الله يدين شعلاده الله يدين نبت قليه الله يدين حفظه دمانتين الله يدين حفظه الله يدين نبت قليه ميلاد شوكنا meel aan joognaba ilaahayna ku xafido hayna ku amaaniyo casarka aan tukanayna allahayna ka aqbalo intii waqti kale ay u tahayna allah subhanahu wa ta'ala ilaahay ha nabad yeelo ha badbaadiyo ha xafido caafiyo ilaahay idankiis walaalayaal dhamaantiin Soomaali ma kala harto Soomaalina ma kala maaranto Soomaali waa Soomaali ilaahay subhanahu wa ta'ala diintooda ha ku dilo oo xaq ha fahamsiyo oo hago u naxariisto hadaynu inagu isa kaalmayna wax ina kaalmaynaya adduunkan ma jiraan hadayna inagu is kaalmaynin oo inagu ina istaageerin oo inagu wax isu qabanin wallahi wax ina taageeraya iyo wax ina kaalmaynaya iyo wax ina yaqaan baaba iska yarba adduunkan qof walba tiisi buu la yaabayo qof walba tiisi buu la yaabayo وادون دباباتيا إلهي دنبقيس يدبتيس الله النضافي خير كيسان الله ينسوا أدي ولا ليال دمانتين با سيدا إيش عشيين بان أنا إذين على دمانتين قبلها إيسو قراء قبلها وحيسو قراء ولا لها يوسات إيش عشيين بان إذين على saa ii taageertaan baa idin taageeraa oo idin jecel ilaahayna waa igu ogyahay sababtay tahay haddaan wax ahay adinka idinku ahay adinkuna hadaa wax tihiin aniga igu tihiin mar walbana Soomaali meel ay joogtaba waxa way ma kala maaranto waa isma hurto ay haysan weey meel walba iyo gobol walba ka joog Soomaaliya waa isma hurto ay haysan inaga dad isoo xigna inaga keena wanaagsan inoo wanaagsan yahay keena xunaanu inagu ina ka xunya keena xun inagu ina ka xunya keena wanaagsan oo sharafta badan oo ma sha Allahna inagu inoo wanaagsan yahay keena wanaagsan inaynu wanaagiisa la qaybsano oo aynu ku taageerno keena xun oo dhibaatada wadana inaynu dhahno gacanta ka qabano war dhibaatada ka joog walaal dhibaatada adigana kuma anfacayso annagana dhibay noota adigana dhibay ku tahay inaan dhahan xaq baan u leenahay waxa YouTube-ka nagaliyay oo hadan hooyooyina inta naga soo hadal siinayo inta naga soo qaylisiinayo waa wanaag raadis baanahay waa sharaftayadii iyo magacayagii muunadayadii hadaanu dal ahayn aanu lahayn inay noo soo noqoto markii waxa weeye waxa la ceelal iyo biyo cabto ayaa reer maar heshiiyaan baali markaan anagu heshiino oo anagu wanaagsanaano ayaanu dal kale iyo dad kale wax la qaybsan karnaa adduunka markaad adigu wanaagsan tahay baad cid kale wax tari kartaa adiga hadaad baabaasan tahay kuwa dabad joogan wax ma qaban kartid kuwa magaalo baadiya joogan wax ma qaban kartid sababtay taadigi baabaasan Soomaaliya marka waxa way walaalayaal haday iyadu halaysan tahay cidna wax ma siin karto cidna wax ma taageeri karto iyaal meel ku xirxiran bay wax ka qaban karin kuwa la xadayo kaliya laga baxay waxba ka qaban karin kuwa dhibaato loo geysanayso waxba ka qaban karin kuwa muxuu hayto baahan bay waxba siin karin laakiin haday dawladeenu wanaagsan tahay oo fiican tahay oo sharaf leedahay dadka ayna ka baqaya dawladaha ayna ku xeeran bayna ka baqaya wardal weeye dhisano taagan oo ciidankoodii loo dadkoodu israacsan yahay leey laakiin maalintii tafaraarq leena ka helo waa reer baadilaaw baynu noqonaynaa marka walaalayaal Soomaaliyeey waxaan anigu jecelahay ama hooyooyinkoo dhan jecel yihiin ama annagoo dhan u heeganka u nahay ama anu YouTube-ka uga buuxnaa YouTube-ka sida anigoo kale waxaan ka rabaa oo kaliya inaan dadkayga dhageysto waxay leeyihiin ana warkayga la dhageysto
haddaan qaldanahay inaad ii sheegtaan tirada waad qaldanta haddaad adinku qaldantiina hooyo baan ahay caruur dhashay oo in badanna soo joogtay inaa idin iraahdo waad qaldantiin oo annagoo dhan aan isku raacno hal faran noqono ayaan jeclahay waa sida aniga qaluubtayda aan jeclahay waxaan jeclahay waddankaygu inuu hagaagsan yahay oo wadamada ugu qurux badan yahay waxaan jeclahay dadka iyaga dabadaha ku baqtiyay oo ama Yurub ha joogeen ama America ha joogeen ama Canada ha joogeen ama Australia ha joogeen ama Carab ha joogeen inay ogaadaan waddanka kaliya ay leeyihiin inuu Soomaaliya yahay baasaboorka aad qaadato qolo walba ka qaado gadaal waxa uga yaala inaad Soomaali tahay ma ahan inaad miya tahay waddanka aad joogto oo ku nooshahay gadaal waxa uga dhigan waxa tahay Soomaali dhibaato xun hadaad geysatid meesha kaliya laga cayrinay meesha kaliya aad ka walwalka qabin meesha kaliya aad ka dhib qabin waa waddankeena laakiin hadda meel walba waxa ka daran waddankeena sababtay adduunka qofka naftiisa inuu u baqo wax ka liitaa male annagoo dhan baa ku soo dhiiran lahayn annagoo dhan baa ciyaalkayga keensan lahayn dhib iyo dhibaato kasto aan qabno waxaan ula aamusanahay waxa weeye dhibta ka weyn oo waddankii ka jirta ilma yar oo saaka ka baxay madrasada aad u dirsatay hadii la yiraahdo kaliya caloosh baa laga baxay waa calool xumo waa nafka dhac xabad baa ku dhacday isagoo meel marayo nin baa isku qarxiyo baabuur baa galay waa nafka dhac kale intaasuba waa ka jirta banaanka waa ka jirta laakiin midba mid bay ka daranta Soomaaliya marka waxa weeye walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigeena dambi waartkeen baa dhaafo inaga wixiina duriyo oo dhib inoo geystaba waa dhibteena dad wada danqanayaan oo ogada ka wada danqanaya qurba haddaan joogno ilmahayaga baan u baqaynaa waxaan isleena maxaa ku dhacay kii ka baxay maxaa ku dhacay gabadhii ka tagtay madrasada aaday maxaa ku dhacay odagii maxaa ku dhacay habartii maxaa ku dhacay baan ku jirnaa laakiin haddaan waddankayaga tagno oo ku irtaaxi lahayna iyaduna waa la mid maxaa ku dhacay qofkii suuqaad saaka u dirtay saacad hadduu soo daaho walwal baa ku galaya Soomaaliya marka waxa weeye wax badan baa waxaan nir war maxay inoo dana war Soomaaliya ka soo jawaab maxay inoo dana Soomaaliya waxa inoo dana adunku hadaa ka soo jawaab weydeen waxa inoo dana inaynu siyaasiga iska qabanno dabka meesha ina ku hursan oo dabka ina ku hursan waa siyaasiga waa in dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ha taagnaado inuu israaca oo ka tashada mustaqbalka caruurtooda waa inuu ka tashada mustaqbalka caruurtooda xagee ku wajahanta adduunyo aakhiro gabdhii waad aragteen xaaladooda wiilashii waad aragteen xaaladooda wax la dilo iyo wax dharkii dhigtay bay noqdeen Soomaaliya marka waxa weeye shacabow anigu waxaan la hadlaa siyaasiga ma ahan madaxweynayaal ma ahan ra'iisul wasaareyaal ma ahan ma raadsado yihiin iyo xagee ka yimaadeen qabiil uma raadsado awoowo uma raadsado ab uma raadsado anigu shacabka Soomaaliyeed baan la hadlaa waxba yaa isaga kindarsamin anigu qofta dadka Allah la waa shacabka Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed baan waxaan hay muxuu ahay hooyo haddaad maqashaan waa hooyo waa qof waarida weeye anigu Soomaaliya waxaan u aqaanaa dhulka hooyo baan u aqaanaa aniguna hooyaana waxaan jecelahay waddankayga qurxoon waxaan jecelahay iyagoo gacanta iswada haysta iyagoo meel walba baan ku ir muxuu ahay qof walba ra'yigiisa ee kartidiisa lagu qaato kan caawa dhashay iyo kan muxuu soddonka jira qof walba ra'yigiisa inuu shaqeeyaan rabaa qof walba dadnimadiisa inuu u soo baxdaan rabaa oo ku shaqeysto dadnimadiisa iyo aqligiisa iyo aqoontiisa inuu la meel maraan rabaa dhalinyarada ama gabdhahaadana ma wiilal ha ahaadeen wiilba walba oo qurux badan oo ra'yi wanaagsan waxa ka horeeya nin muxuu ahay qabqablaada xoogaa lacag aruursaday baa ka horeeya oo tartamahayo ordahayo wiilkan ra'yigiisa wuxuu bartay iyo ra'yigiisa uu meesha la fadhiyay waxa qariyay waa odayaasha qabqablayaasha oo reeroodiina baabiyaan cid wuxuu haynin wallahi inaysan ilmo reer oo dan u haynin oo reer dan u haynin ayaga dan wata iyo inay muxuu ahay to ay dawlad hoosta ku wataan ama ay dan kale ayagu wataan ma ahan dan inay dhalinyaro u wadaan ma ahan inay caruur dan u wadaan ma ahan inay hooyooyin dan u wadaan wax badan baa waxaan ka aamusnay inaanan macnaha cid aan ataagin laakiin hadda waa naga badato halka dhuunta bayna maraysaa Soomaaliya marka waxa weeye dhalinyaradu iyo dadka aqalliga u saaxiibka inay ka kacaan oo Soomaaliya
gabar waxaan arkaya la yiri waxay tir muxuu hayto rag iyo dumarku gabdhuhu iskuursan karaan miyaa la yiri ma aqaan war wixii dulaysan ama gabar ha ahaadaan ama wiil ha ahaadaan ama oday ha ahaadaan ama habar ha ahaadeen inaad meel looga soo wada jeesto haddaanu khaldannahay inaad ka baxdaan qaladka iyaga sababteed qofkii asagoo is xushmeeyo is xarageeyo is wanaajiyaa la wanaajiyaa annaga haddaan is wanaaji waaridnimada iyada haddaan intaan idin la fariisan aan idinku dhihin maxaa adinka xoog maanta leh oo dalkii maskaxna u leh muxuu hayto miyirna u lehna maxaa qaban kartaan maanta waxa weeye dadka maanta aniga ila fila oo 40 gaaray ama 40 muxuu hayto kaba horeeya intii kaba horeysa maanta maskaxdoodu waa dhaqantay dagaal iyo xarbi iyo qabiil baa ka buuxa qabiil iyo dagaal iyo hal isdilo iyo hal dagaalamaa ku jirta iyo maxaa loo yiri iyo ficiladii Soomaaliya baabiisay baa ku jira laakiin dhalinyarada hadda soo kacday oo dagaalka ku baaba'day oo nafti ka dhacday oo muxuu hayto reer dhisan waaye oo meel dagi waaye oo madax noqon waaye oo magac yeelan waaye oo meel walba laga soo xiro albaab walba laga soo istaagay waa inay ayaga hadda ka xiraan waa inay hadda diidaan qabiil waa inay diidaan waa inay qolo diidaan waa inay diidaan gobol xunuhu meel fariistay waa inay ka soo hor istaagaan waa inay dantooda raacdaan nin qof walba adduunka dan buu leeyahay qof walbana wuxuu leeyahay maanta muxuu hayto ra'yi iyo wuxuu leeyahay aqoon uu ku socdo maanta wuxuu leeyahay oo kale muxuu hayto hadaf uu leeyahay oo qofkaan rabo inuu gaaro aniga hadafkayga hala baabiyo adigu hadafkaaga samayso qofna ka yeelimayo anigaan hooyaa cid ka yeelimayo haye qofku marka waxa weeye hadafkiisa waa inuu gaaraa waa inuu qofku hadafkiisa gaara qofkaan dhalinyarada hadaf buu leeyahay waa in hadafka waaridku waxa la rabaa ilmaha kan maanta waxa weeye aniga ilmo weyn baan leeyahay waa inuu sidoo u fakarayo waa inaan fiiriyaa hadduu fakarkiisu fiican yahay oo wanaagsan yahay waa inaan gacan qabtaa waa inaan soo saara maahan inaan anigu wali orodkii ku sii jiro maahan wali inaan anigu si ruuclihii ku sii jiro waa inaan ilmaha kan arrintooda iyo fakarkooda aan taageeraa sababtay ta aniga waxa soo qaban kara waa soo qabtay orodkan soo ordi kara waa soo orday waa inaan ayaga hadda taageeraa waa inaan hadda ayaga gacan siiyaa waa inaan ayaga iraahdaa maasha Allah tabaaraka Allah ra'yigaagan waa fiican yahay haye hadana waxaan kugu taageeri kara waa kugu taageeriya af iyo calafba maahan inaan aniga orodkii ku sii jiro maahan inaan anigu wali dhaho anaa noolo hawl qaban haye fariista adinku la waa khalad weey anigu taa waa ka soo hortaagana ilmuhu han bay leeyihiin dhalinyaradu han bay leedahay waxa laga yaabaa adigii soo ordayo cimrigaaga soo ordayna ayagu ka han fiican yihiin adaan dhahayna waad iga han fiicantiino ma sha Allah waad iga han fiicantiin haddana waad u sheegaysaa waxa dhahaysaa aniga saasan soo sameyn jiray waana ku soo caana maalay ama waa ku soo lugo ayo ku soo baabay ka joogataydii halkaas ayda marinina taydii hadday fiican tahay anigu saas iyo saasana laakiin anigu hadda mid ka si fiican haysaaniin yalla hadayna ku hogaamiyo dhalinyaradii haddii gacanta la qabto oo wixii qaladana la tuso wixii saxana la tuso toodiina ay ku darsadaaneen dariiq wanaagsan bay marayaan laakiin haddaan idhaahdo oo anigaaba taagan oo hawshi kala haye maxaa adinku sameynaysaa waa khalad weeye dhalinyaradu marka hadda waxa weeye waxbay soo baratay waxa weeye ma sha Allah tabaaraka Allah dad waxaad arkaysaa dad baad waxaad weydiinaysaa war wixii maadiga ahaayo saasa ka waramo waxa lagu leeyahay maxay ahayd waxaas waaba iloobayba see marka rabtaa inaad dawladda iyo daldan u xukuntid waaba ilowda wixii shalaydii dhibaatadii nagu dhacdo aan ogeyn xaaladayadu say noqotay aan ogeyn waad ilowday seebaad marka reerka dadkan adduunkan hadda horumaray oo wax walba lagu kala socdo see rabtaa inuu hogaamisid bal hala weydiiyay dadkan waaweynka qof aniga hadda ila daa ban xalay su'aal weydiiyay waxaan ma garanaysaa maalintii sidaas ahayd wallahi baan ku dhaartay waxa lagu yiri maxay ahayd waxaas wallahi ma garanayo goormay ahayd see marka rabnaa inaan dad hogaamin anagoo saa maskaxdiiba noo dhaqantay see rabnaa inaan hogaamin dadkan marka cusub oo la socda computerka la socda dadkan computer ba hadda markaad hadda warqad qoratid ama dawladda meel u qortid computer ba ku jawaabaya waad aragteen risaaladaada kaaga jawaabaya kuu soo diraya Allah haye waqtiga aan shaqadu marka aan dadku ku jirinin inta shaqada laga maqan yahay oo maaragtay sida muxuu hayto hadda subaxda qofku markuu shaqo galo 9 saac buu ka baxaa ama 8 saac wixii ka dambeeya 10 saac 12 saac 12 saac computer ba kula hadlay waad aragtay oo ku jawaabaya
dadkan marka kombiyuutarka la dhashay ha loo daayo waxay muxuu hayto adduunkan waxa weeye maalin beheer buu taagan yahay meeshuu marayo hana lagu saacido wixii ka horeeyo maadiga ahaa loo sii sharaxo walaalayaal marka waxaan idin leeyahay waa فوز ويا يوتيوب فوز ويا ولا على هاي دمانتين وحن شعلهاي وإن أذنكم وركيجا دقيستان أنا أوركين دقيستو وحي الرأي وناجو ولا المعنى إن أذنكم إيسو شتان أنا إذن سوشيا إلهي إذن كيس وقيركم كتيرو إلهي رالك إياهي إلهي رالك إياهي إلهي وحي رالك إياهي بان الجهر مرة إن شاء الله بإذن الله إلهي وحي الدم بينها نقع فيه وحي خيرنا إلهي هنا وافتشيا إن قردن دمانته ولا ليال دم بجني دم بورتكن الله دافو وحن ذيك تجيا سيداسي نبتقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته